waa laba sharciyo ayada saaris iyo sharcigan kala xakameynta kiimikooyinka beeraha oo aad muhiim u ah dalkeena waa ogtihiin waxyaabo qaarkood oo la soo dejiyo dekadeen laga soo dejiyo qaarkood explosive loo isticmaalaa jirto oo kiimikooyinkan oo beeraha oo qaab fertilizer ku imaado oo noocyo kale loo isticmaalo iyadoo taas nafteeda taxadar ay u baahan tahay guddi ka warqabo maarta arrimaha safety iyo badqabkoodii iyo dhibaatooyinka aafooyinka ay u geysanayaan environment markii laga reebo waxyaabo kale oo khatar ah oo dalkeena u geysanayaan ayaa jirto marka waxaan loo xakameyn waayay arrintaas safety sharci la'aan iyo baahidaas waa jirtay runtii wasaaradda aan ugu mahad celinay sharcigan ay waqti ku habboon ay keentay oo aad muhiim u ah sida ay sheegeen saraakiisha ugu horeeyay waxaan qabaa in kiimikooyinka qaarkood oo khatar ah marka laga reebo dhibaatooyinka ay u geystaan waxyaabahan kiimikooyinka la isticmaalo qaarkood waa dalagyada aan isticmaalnay ka mid tahay sidoo dufle uu sheegay oo khatar badan ay geysan karaan sida caafimaadka ah marka waxaan qabaa in guddigan saaris muhiimad ugu weyn oo loo sameeyay inay noqoto baaritaano research weyn dalagyo qaarkood fertilizer qaarkood aan adduunka laga isticmaalna jirto laga mamnuuco dunidu marbaheer bay samaysaa oo maartay dalagyo ay soo saartaa environmentally waan la fiiriyaa iyo qaababka loo isticmaalo qaarkood waxaa jirto oo maartay oo waqti markay joogaan aan la isticmaalin marka waxaan qabaa guddiga saaris in awoodda weyn uu saaro researchka iyo maartay dabagalka iyo xakameyntaas maartay fertilizer qaarkood soo dejinay marka sidoo kale sharciga waxaan qabaa aad u muhiim yahay maadaama waqtigii fasaxay inuu soo dhow yahay waqtiina iska cariiriskii maalmaha shaqada xagga u baantay waxaan qabaa in bari sharcigan aan isku soo laabano sidii aan u ansixin lahayn aad u mahadsantiin